ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland oo dib habeen balaaran lagu sameeyay ayaa waxa ay bilaabi doonaan howlgallo balaaran ay ka sameeyaan wadooyinka waaweyn ee magaalada si ay uga baxdo jaamamka iyo waliba dhibaatooyinka gaadiidku geysanayaan oo yaraadaan. ciidamada ayaa waxa ay soo rogeen qodobo dhowr kuwaas oo ay ku tilmaameen wadihii amaba gaadiidlihii aan shuruucdaasi buuxin in ay mutaysan doono ganaax. Gaashaanle dhexe Ismaaciil Xirsi Qabaal ayaa isagu sheegay in muddo bil kadib ay shuruucdaani haatan soo saareen ay dhaqan gali doonaan isla markaana inta ka horeysa ay shacabka sii gaarsiinayaan. waxaan dhammaan ku wargelinaynaa gaadiidleyda Puntland joogta oo gaadiidka wadata annagoo ciidanka nabadgelyada wadooyinka Puntland dhammaan waxa weeye waxaan ku wargelinaynaa gaadiidku wuxuu ka batay wadooyinkii jaambu ku noqday dhimasho iyo dhaawac badan baa jira khasaare hantiyeed baa jira oo nafiya maalba leh waxa weeye ciidanka nabadgelyada wadooyinku waxay ka howlgalayaan haddii ilaahay idmo dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay Puntland inta ay tahay ciidankaas oo ciidan tayeysana oo hadda ka soo baxay tababar oo aqoontooda xagga tayo iyo xag ciidan ba laga dhisay waxay haddii alla idma ka howlgalayaan dhammaan Puntland gaadiidka aan laysanka lahayn waa la qabanayaa darawalkana waa la xirayaa gaarigana waa laga xariiriyaa mootooyinka taargada ku dhagsada wajiga iyo jaamka joogtada iyo dhaawaca joogtada boqolkiiba 80 shilalka ka dhaca Puntland waxaa sababa oo hadda magaalooyinka waaweyn ku sababtooda keena mootooyinka haddii alla idmo waa la ganaaxayaa waa la xirayaa waxa weeye insha Allah ciidanka nabadgelyada wadooyinku waxay ka howlgalayaan inta gobolada yahay hadduu sabrikaari ka yahay hadduu waluuma yahay oo gadoomayo haddii uu yahay gaari aan laysan lahayn gaari aan taarga lahayn gaari aan lahayn baxalka la yiraahdo dhammaan wixii sharci ah oo looga baahan yahay hadduu baakin xuma sameeyo oo no baakin dhigto haddii uu tii soo galo oo saas unuka hadduu kontara maana galo hadduu laysan la'aan yahay dhammaan waa la xirayaa waana la ganaaxayaa wuxuuna marayaa ciqaab. Saleemaan Maxamed Cabdalle oo isagu kamid ah oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland ayaa isagu akhrinaya qodobada ay soo saareen ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland. waxaan ogeysiinaynaa oo ciidanka trafficada dawladda Puntland oo ogeysiinayaa dhammaan bulshada isticmaasha gaadiidka in ay ilaaliyaan sharciga wadamarista Puntland. dhammaan gaadiidleyda mid dawliye iyo mid shacab labaduba waxa waajib ku ah inay ilaaliyaan sharciga wadamarista ayna dhowraan nidaamka u degan. ciidanka trafficada ee dawladda Puntland dib u habeyn iyo qalabayn ay ku sameysay dawladda Puntland waxay dardar gelinayaan oo ay laba jibaarayaan shaqadii hore ay loo hayeen bulshada oo ahayd ilaalinta iyo dhowridda nafta iyo maalka bulshada isticmaalaysa gaadiidka noocyadeeda kala duwan. haddaba waxaan doonaynaa inaan ogeysiiska ku darno maadaama muddo dheer gaadiidleydu ay si furan u isticmaalayeen gaadiidka iyadoo la dardar gelinayo lana xoojinayo hirgelintiisa sharciga wadamarista Puntland ganaaxyo loogu talagalay in ay macni wax weeyaan ogaadaan gaadiidka iyo darawalada jabiya sharciga in ay wajahayaan haddii lagu qabto darawalka ay daadisu ka yartahay 18 sano ma wadi kara gaadiid sababta ay ku tahay 18 qof aan gaarin mas'uuliyad ma qaadi karo
sidaa la-aligeedna ma kafayn karo baahida loogu talagalay ama gaadiidku uu leeyahay. lambar 2 lama wadi karo gaadiid bilaa taarga ah. bulshada gaadiidleyda ah ama gaadiidka isticmaala ama darawallada ah lama wadi karo gaadiid bilaa taarga ah. haddii la qabto nooc kasta uu yahay wuxuu mudanayaa ganaax, ciqaab iyo xarig. lambar 3 gaadiidka qaada rakaabka ama rar xad dhaaf ah ama rakaab xad dhaaf ah oo dadkii loogu talagalay dad ka badan qaada, isaguna wuxuu mutaysanayaa ganaax iyo ciqaab iyo xarig. سأنتهي ولا لازم كجاري موضة ما شاء الله بوقي موضة أوكي وأكو عنشورية جارو مياه مسوي مسمع عنشورة أوكي وما سنتهي وصعون كرتا laysan kara inaad qaadatid waa muhiim oo aad jeebka ku wadatid waayo waa ID kaarkii gaariga iyo adiga. assalaamu calaykum walaal ma san tahay laysanka gaariga ma wadataa aad baa ma san tahay buugi waa wadataa Soomaa oo ku canshuuranaya Soomaa aad baa ma san tahay سأنتهي ولا وأكو عنشورية في الجارو وما سنتهي ليس كم وضعتها هاد ما سنتهي بوجنا وضعتها هاد ما سنتهي وصان كذا. ciidamadan ilaalada wadooyinka Puntland ayaa dhinaca tababarada gaadiidka iyo agabyada kale traafikadu ku shaqeyso kuwa haatan loo dhameystiray yihiin, waxaana ay sheegeen inay howlgal kasta ciidamadu ay diyaar u yihiin inay qabtaan. Maxamed Saciid Yuusuf, STN Garowe.